wakaaladda wararka AFP waxa uu beesha caalamka ugu baaqay inay wada hadal la yeelato dhaqdhaqaaqa Taliban ee la wareegay awoodda dalka Afghanistan isagoo ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in laga hortago burbur dhaqaale oo dalkaasi ku yimaada taasoo horseedi karta buu yiri in malaayiin dad ay geeriyoodaan. waa inaannu joogtaynaa wada hadalka aannu kula jirno Taliban kaasoo si toos ah aan ugu adkaynayno mabaadi'deenna ayuu yiri. xogayaha guud waxa uu carabka ku adkeeyey inay waajib ku tahay inay isbarbar taagaan shacabka kadeedka ku jira ee ay malaayiin ka mid ahi waajahayaan geeri ay sabab u tahay gaajo. xaaladda dalkaasi lama sii saadaalin karo maadaama ay sidaa tahayna waa inaannu Taliban wada hadal la galnaa ayuu raaciyey. xogayaha guud waxa uu carabka ku adkeeyey in wada hadal lala yeesho dhaqdhaqaaqa islaamiga ah uu yahay mid waajiba wuxuuna intaasi ku daray haddii aannu doonayno in Afghanistan aysan noqon xarun argagixiso, haddii aannu doonayno in haweenka iyo gabdhuhuba aanay waayin xuquuqdii ay lahaayeen, waa inaannu hor fadhiisannaa Taliban. xogayaha guud ayaa muujiyey sida uu diyaarka ugu yahay in uu maalin un booqdo Afghanistan haddii la helo jawi ku habboon. wasiirka arrimaha dibadda ah Israel Yair Lapid ayaa sheegay in bariga dhexe aanu nabad noqon doonin inta ay jirto argagixisada Iiraan, waa sida uu hadalka u dhigay, isagoo carabka ku adkeeyey in Tal Abiib aysan ka aamusi doonin dhaqdhaqaaqa ay wado Tehraan. Lapid ayaa shir jaraa'id oo ay si wada jira Moscow ugu qabteen isaga iyo dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov waxa uu ka sheegay in aanay gacmaha ka laaban doonin dhaqdhaqaaqyada ay Iiraan ka wado saldhigyadeeda gobolka ku yaala. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa yiri Iiraan waxa ay qaybinaysaa hub casri ah sina loogu weeraro, sidaasi aawadeedna waxaa nagu waajiba inaannu iska difaacno khatartaasi. mahadsanid Jacfar Kukaay oo noo akhrinayo warka caalamka. halkaad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. aan ku bilownay waxaa cirka isku sii shareeraya muranka ka dhex aloosan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kaas oo salka ku haya buuqii ka dhashay dilkii la sheegay in loo geystay Ikraam Tahliil oo ka tirsanayd hay-adda sirdoonka Soomaaliya. wixii xilligaas ka dambeeyey waxaa qoraallo isburinaya ay ka soo kala baxayeen xafiiska madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha. haddaba waa ayo cidda awoodda u leh in khilaafkan oo kale ay xaliso, dastuurkuse muxuu arrintaasi ka qabaa? su-aalahaasi waxaa ka jawaabaya Amiin Haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Jacfar Kukaay ayuu khadka taleefanka ugu warramay. isqabqabsiga dowladda iyo maaragtay madaxda wax caadi oo dhaca, laakiin hay-ad dastuuri ah oo maaragtay fulinta iyo tan sharci dejinta u dhiganta hay-addii garsoorka ka maqan meesha. marka maqnaanshaheedaasaa la tabaya maadaama oo maaragtay nin waliba isla quman yahay. waxaa loo baahnaa cid labada ishaysa midna aan ahayn oo dhexdhexaada oo maxkamad dastuuri ah oo maaragtay maxkamadaha heerarkeeda kala duwan ah oo arrin soo dhex gasha oo maaragtay ay dadka markay isqabtaan isla aadaan. marka madaxduna ma aha exception ama kama duwana. marka taas ayaa meesha ka maqan tabayna. waaya laakiin marka horeba dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin in jahawareerkaba uu sabab u yahay dastuurka. dastuurku wuxuu qorayaa marka uu awoodaha madaxweynaha ka hadlayo in madaxweynuhu uu ka qaadayo xilka wasiirka, wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka kadib marka uu soo jeediyo ra'iisul wasaaraha. sidoo kale marka awoodda ra'iisul wasaaraha uu ka hadlayana wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaruhu wuxuu awood u leeyahay in uu xilka ka qaado wasiirka. marka sow dastuurkaba lama dhihi karo waxa jahawareerka asalka u ah waa isaga. horta dastuur adduunka 100% toosan oo aan iska hor imanaynin oo wax maaragtay lagu kala arag duwan yahay aysan ku jirin adduunka kama jiro. dastuur waliba wuu soo maray kii hataa hadda maanta maaragtay meel fiican wax u marayaan xilli ayuu soo maray. loo baahnaa in tafsiir laga bixiyo ama maaragtay la fasiro meelaha qaarkood ama la iswaafajiyo ama maaragtay mid mudnaanta la siiyo. arrintaasna waxaa iskale sidaan hore u sheegay maxkamad ayaa iskale, garsoorka ayaa meesha ka maqan oo loo baahnaa markii sidanoo kale la isu qabto oo dastuurka la isku khilaafo waxa ku qoran in lala hortago oo iyadoo ay fasiraad ka bixiso. haddii kale labadan maaragtay aragti ama qodob iska soo horjeeda midka mudnaanta la siinayo midka meesha laga saarayo maxkamadda ayaa iska lahayd inay arrintaasi sharciga ay waafajiso maadaama ay maxkamaddii meesha jirin. marka waxaad moodaa cid waliba inay meesha iskaga dhigan tahay. haddii marka maxkamaddii dastuuriga ahayd aanay dalka ka jirin, maxkamadda sare ma buuxin kartaa booska maxkamadda dastuuriga? booska maxkamadda dastuuriga ma buuxin karto maxkamadda sare, laakiin shaqo badan oo loo idma bay qaban kartaa. taas macnaha dastuurka ayaa qeexay
maxkamad dastuuriga ah awoodeeda iyo noocay noqonayso iyo maaragtay sharciyadeeda waxaa sameeyey dastuurka. Ugu yaraan waxay fursad u siin lahayd inay isla hortagaan dadka iska soo horjeeda ama maaragtay wixii la isku hayo ayaa lala tegi karaa. Marka iyada laftada shaqadeedii baa bannaan oo maaragtay wax badan uu bayraha ka yahay, laakiin sharci ahaan uma buuxin karto booskii maxkamad dastuuriga, waayo maxkamad dastuuriga waa maxkamad ku qoran oo ku qeexan dastuurka dalka. dadka arrintan ka hadlaya qaarkood waxay leeyihiin madaxweynaha hadda sharciba ma aha oo xilligiisii wuu dhammaaday, muddo 8 bilood ku dhow amaba gaartay ayaa ka soo wareegatay waqtigii uu xilkiisa ku ekaa. si la wada ogyahay ayuu xilka qabashada doorashada iyo amnigeedaba ugu wareejiyey ra-iisul wasaaraha. marka madaxweynaha hadda meeshan albaaba ugama furna ayay leeyihiin. arrintaasi suurtagal ma noqonaysaa marka dhinaca sharciga laga eego? waa dood taagan oo dadka qaarkood ay qabaan, taasna kuwa kasoo horjeedaa jira oo maaragtay ilaa madaxweyne kale la doorto madaxweynihii horaa sii shaqaynaya qaar odhanayaa jira. marka arrimahaasoo dhan runtii waxay u baahnaayeen in maaragtay dastuurka la waafajiyo. waxaa marka loo baahnaa cid tidhaahda maaragtay adaa saxsan iyo adaa khaldan, ama maaragtay madaxweynaha waqtigiisu u dhammaado awooddanba ma lahan. waxyaalo badan oo runtii loo baahnaa in maaragtay maxkamadu ay dastuurigii ugu yaran ay fasirto oo cid waliba meesheeda ay maxkamadda dastuuriga siiso ayaa meesha ka maqan. dastuuriga baad ku soo celcelisay, dad badanna way kula qabaan fikraddaasi oo muranka noocan oo kale ah maba yimaadeen, haddii uu yimaadana si fudud baa lagu kala bixi lahaa bay aaminsan yihiin. marka maxaa hortaagan maxkamaddii dastuuriga ahayd in Soomaaliya ay yeelato? waxaan ognahay madaxweyneyaal fara badan baa wixii ka dambeeyey burburkii waddanka soo maray mid ku dhiiraday amaba isku dayay in uu dhiso maxkamaddii dastuuriga ahayd ma jiro. maxaa hortaagan baad is leedahay? wallahi niyo caqabadaasi waa caqabad runtii ay ku fiicnaan lahayn inay ka jawaabaan dadkii kaalintaas dalka u hayay oo madaxdii ay arrinta qabsatay oo maaragtay laga filayay inay hawshan ku dhaqaaqaan ayaa aad u fiicnaan lahayd inay ka jawaabaan. laakiin waxaa suurtagala mararka qaarkood aad maqlaysaa dadku inay ay soo jeedinayaan, macquulna ay tahay in madaxda laftoodu ay u arkaanba maxkamad inay dhisaan inay tahay maaragtay caqabad ama awooddii laga qaybsanayo. saa daraaddeed ay maaragtay aysan rabinba in ay xubintan muhiimka u ah dowladnimada ay kusoo kordhiyaan ama ay ka heshiiyaan. mararka qaarkood waxaan arkaynaa iyadoo isqabqabsi badan uu ka dhacayo qaabkii loo dhisi lahaa dadku aysan maaragtay heshiis lagu midaysan yahay aan laga gaarin, laakiin weli waa qabyo ayay ka dhigaysaa dowladnimadii. marka waxaa loo baahan yahay dabcan arrintaasi in lagu dhaqaaqo oo baahideedii baa haddaba la arkayaa. inta ay maqan tahayna sidaas iyo isqabqabsigu u socon doonaa. waaya ugu dambayntii marka haddii maxkamad dastuuriga oo kala saaraysa aanay jirin, dastuurkiina uu dhinac walbaba siduu jecel yahay u fasiranayo, maxaa xalay yay hadda kaalin uga bannaan tahay in ay arrintan soo dhex galaan, xalna ay ka gaaraan amaba ay isku soo dhoweeyaan labada dhinac? ta ugu fiican waxa weeye in maaragtay isu soo dhoweyn iyo maaragtay wada hadalsiin dadka iska soo horjeeda mar walba fursad loo siiyo si ay u wada hadlaan. nin walibana de wuxuu rabay uuna u wada helin, mid walibana wuxuu rabay wax ka mida uu helo oo maaragtay ay si dhexdhexaad isugu yimaadaan. taasna maaragtay waa arrin runtii dadka Soomaalida u taalla, gaar ahaan dadka inta waxgaradka iyo culimada iyo maaragtay aqoon-yahanka ayaa laga rabaa inay ka qayb qaataan, iyo dabcan dadka maaragtay dowladda ka midka sida xubnihii hore baarlamaanka u istirsanaan jiray oo kale, dadka miisaanka kule bulshada dhexdeeda inay arrintaas ay fududeeyaan. ta ugu daranay maaragtay aan marna cidna dan u ahayn waxa weeye maaragtay in arrintu ay faraha ka baxdo oo sugacanqaad iyo isdhibaatayn ay u gudubto. marka waxaan rajaynaynaa inuu caqligu shaqeeyo, madaxda Soomaaliyeedna ay maaragtay miiskooda hadalka wax walba ku dhamaystaan. kaasi waxa uu ahaa Amiin Haruun oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Jacfar Kuukay ayuu khadka taleefanka ugu waramayey. ololaha qaadashada tallaalka ka hortagga xanuunka COVID-19 ayaa ka bilowday deegaanada Jubbaland xilli muddo haatan laga joogo 4 bil dadkii ugu badnaa ay u geeriyoodeen cudurkaasi, waxaana bulshada Jubbaland la duldhigay amarka ah qaadashada tallaalka COVID-19 si dadka looga badbaadiyo halista cudurkaasi oo saameyn weyn ku yeeshay dunida oo dhan. faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad. daafurka ololaha talaalka caabuqa COVID-19 waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland kuwa oo dad ku wacyigelinayay qaadashada talaalka cudurka COVID-19 kaas oo waayadii u dambeysay si weyn ay bulshadu u qaadanayeen talaalkaasi si looga hortago halista cudurka COVID-19. Cali Cabdulaahi Maxamed,
madaxa waaxda tallaalka ee wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa sheegay in tallaalka la gaarsiinayo dadka da'da ahi iyo dhammaanba dadka ka shaqeeya wasaaradaha iyo goobaha laga soo galo magaalada siiba shaqaalaha dowladda, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay ka faa'iidaystaan. guud ahaan waxaan ka bilaabanaa degmooyinka Jubbaland, waxaanana taargetkanagu yahay inaan gaadhno dhammaan dadka ku habboon inay qaataan tallaalkan oo ay ugu horeeyaan dadka waaweyn, dadka xanuunada qaba, dadka loo yaqaano frontlineska oo meelaha maaragtay laga soo galo dalka jooga ama xarumaha dadka bukaanka booqdaan oo maxaan ku yiraahdaa health workerska ama maxaan ku yiraahdaa point of entry-ga dadka meelaha laga soo galo xuduudaha ama airportka ama portka oo kale dekedoo kale meelahaas oo kale dadka jooga, dadka u shaqeeya meelaha muhiimka ah jooga sida dowladaha hoose oo kale, booliska, macallimiinta, dadkaasaa waxay noo yihiin frontline. sidoo kale waxaan tallaalanaa qof kasta oo ay da'diisu ka weyn tahay 18 sano. waxaan rabnaa tallaalka inaan gaarsiino. Jubbaland waxaa laga tallaali doonaa 40,000 oo dhows ama 40,000 oo qof. Maxamed Ibraahim Ogle, wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland oo daahfurayay ololaha tallaalka caabuqa COVID-19 ayaa fariin adag u diray bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. waxaan rabaa inaan laba qodob oo muhiima aan dul istaago. qodobka koowaad, waxaa maanta soo bixi doona hadduu ilaah yiraahdo warqad heer madaxweyne qusayso qaadashada tallaalka ee Jubbaland guud ahaan. haddaa xasuusataan khamiistii hore golaha wasiirada waxaan ka sheegnay tallaalkan inaan furi doono maalinka Axadda, waxaana kusimaha madaxweyne ku-xigeenka labaad uu noo ballan qaaday inuu dikreeto ku soo saari doono in qaadashada tallaalka ay ahaan doonto qasab shaqaalaha dowladda iyo dhammaan bahda caafimaadka iyo bulsho weynta Jubbaland. sidaas darteed waxaan ka codsanaynaa in aad si guud ahaan iyo si gaar ahaanba aad u qaadataan tallaalkaas. wasaaradda caafimaadka Jubbaland ayaa waayadii u dambeysay waday ololo ballaaran oo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubbaland ay ugu wacyigelinayaan dadku in ay qaataan tallaalka cudurka COVID-19 iyadoo la ogson yahay dhibaatadii ugu cusleed ee COVID-19 uu gaarsiiyey bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo oo muddo haatan laga joogo 4 bil saameyntii ugu cusleed uu u geystay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. waxaana haatan si weyn magaalada Kismaayo uga soconaya tallaalka caabuqa COVID-19 looga hortagayo, waana bulshada intooda badan la arkaya iyagoo safaf dhaadheer ugu jira qaadashada tallaalka cudurka COVID-19. sidoo kale waxaa dadka tallaalka loogu geynayay goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada Kismaayo. aadan maxamed salaad, VOA, magaalada Kismaayo. dalka Kanada waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka dadka ugu badan ay qaateen tallaalka COVID-19. ku dhowaad 70% dadka reer Kanada ayaa qaatay ugu yaraan hal tallaal. dowladda uu xilka ka sii dhammaanayo ayaa dadaal badan waxa ay ku bixinaysaa in dhammaan dadka ay qaataan tallaalka, halka xisbiga mucaaradka ah uusan muhiimad badan u arkin arrimaha tallaalka. waa kan Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintan ka soo diray magaalada Toronto. qaadashada tallaalka COVID-19 ayaa u muuqda mid si dadban dadka Kanadiyaanka ah qasab looga dhigayo. shaqaalaha qaar ee dowladda federaalka iyo kuwa maamulada gobolada iyo magaalooyinka ayaa xilli sii horeysay sheegay in xitaa shaqooyinka ay ku waayi karaan haddii aysan istallaalin shaqaalahooda ugu dambeyn dabayaaqada bisha dambe Oktoobar. gobolka Quebec ayaa shaqaalaha caafimaadka ee dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ku qasbaya inay yihiin kuwa tallaalan, haddii kalena laga joojin doono shaqada ama aanan la siin doonin wax mushaara. sidoo kale dadka aadaya cisbitaalada, maqaayadaha iyo goobaha kale ayaa laga rabaa inay wataan baasaboorka ama kaarka caddaynaya inay si buuxda uga tallaalan yihiin xanuunka COVID-19. dadka gobolka Quebec ayaa 1 bishan helay kaarka caddaynaya inay si buuxda u tallaalan yihiin. Cusmaan Xuuriye Cali oo loo yaqaano Cusmaan Montreal wuxuu muddo degan yahay magaalada Montreal ee gobolka Quebec. waxaan weydiiyey maraan qadka taleefanka kula xiriiray sida uu arko kaarka tallaalka ee COVID-19 iyo in dadka shardi looga dhigo si ay u helaan adeega ay rabaan marka ay tagaan sida cisbitaalada iyo maqaayadaha. Quebec September 1 ummadda waxaa lagu qasbay inay qaataan baasaboorka tallaalka ama buugga tallaalka, taa oo macnaheedu yahay qofkii 2 tallaal qaatay uunbaa qaadan kara. meel kastoo la isugu tegayo sida meelaha maqaayadaha, baararka maqaayadaha ah
moolasha meelaha la fadhiisto jiimamka baarka oo ilmaha lagu cayaarsiiyo meeshii laisugu yimaadoo dhan haddii aadan sidan ma tegi kartid marka waxaad moodaa inuu yahay daruuri dhinaceenna Quebec oo haddii aadan sidan aadan wax iibsan karin sida suuqyada aadan geli karin wax soo iibsan karin oo lagu weydiinayo buugga talaalka awal lagu leeyahay Soomaalida aan ku degannahay Quebec ma badna laakiin waxaad moodaa inaan aad looga helay baasaboorka la sito sababtoo ah waxaad kala garan kartaa qofka aan la fadhiisid inuu yahay qof horta talaalkii soo qaatay awal waxaa dhici jirta in leesdhex fadhiyo kii talaalnaa iyo kaan talaalnayn gobolkan Ontario gaar ahaan magaaladan Toronto oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa ka mid ah meelaha sida aadka ay dadka isku talaalayaan sidoo kalena dowladdu waxay dadka ku adkeynaysaa sidii ay talaalka u qaadan lahaayeen laakiin si ka duwan gobolka Quebec waxaa dadka la weydiin doonaa marka ay helaan kaarka bilaha soo socda caddaynta ah inay si buuxda ugu talaalan yihiin COVID-19 meelaha laga maarmaanka ah sida maqaayadaha iyo goobaha kale ee xafladaha ee ay dadku isugu yimaadaan laakiin kuma jiraan cisbitaalada iyo goobaha kale ee aadistoodu ay daruuriga tahay meelaha la isku weydiin doono kaarka talaalka COVID-19 haddii aysan hadhow wax isbedelin dad badan oo reer Ontario ah ayaa soo dhaweeyay helista wax caddaynaya in dadku ay si buuxda u talaalan yihiin iyo in kale waa kan aadan maxamed cusmaan oo loo yaqaano aadan baroodo aniga waxay ila tahay qofkii laba talaal qabo in la caddeeyo waa muhiim talaalka 20% waa diidayaan say qiyaaseen marka 20% oo talaalka diiday ma aha wax importantiya laakiin 80% oo labada talaal qabo in buug caafimaad ama wax caddaynaya la siiyo inay labada talaal qabaan waa wax muhiima oo aad loogu baahan yahay ololaha doorashada federaalka ee dalkan oo qabsoomi doonta 20 bishan ayaa qayb ka ah arrimaha talaalka xisbiga liberaalka ee hayay talada dalkan 6 sano ee lasoo dhaafay oo doonaya inay sii joogaan xafiiska ayaa si weyn ugu ololeynaya talaalka COVID-19 qaadashadiisa iyo kuwaajib yeelistiisa dadka sidaasi si ka duwan waxaan muhiimad badan siinayn talaalka xisbiga conservative-ka ee mucaaradka ah madaxa xisbigaasi Erin O'Toole mar su'aal laga weydiinayay talaalka COVID-19 wuxuu xusay in dhammaan wasiiradu uu soo xulan doono haddii uu ku guuleysto doorashadu aysan shardi ahayn inay noqdaan kuwa si buuxda uga talaalan COVID-19 balse wuxuu hubiyey inuu dooran doono wasiir caafimaad oo si buuxda uga talaalan COVID-19 dad badan ayaa hadalkan u arkay in haddii xisbiga conservative-ka uu ku guuleysto doorashadu ay meesha ka bixi doonto shuruudaha adag ee la xiriira talaalka COVID-19 ee hadda horyaala dadka Canadianka Xuseen Nuur Xaaji VOA Toronto xiisadda ka taagan biyaha webiga Niil ayaanay weli dowladaha isku hayaa wax is-afgarad ah oo dhammaystiran ka gaarin wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shukri ayaa sheegay in heshiis adag oo laga gaaro biyo-xireenka Itoobiya uu baajin karo qalalaase ka dhex dhaca dalalkaasi warbixintan waxaa Qaahiro nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shukri ayaa si adag u sheegay heshiis adag oo ku saabsan biyo-xireenka Itoobiya in uu baajin karo qalalaase xun iyo cawaaqib xumo ba'an oo aan la mahdin doonin in ay ka dhacaan mandiqada al-sayid saamix shukri oo hadal ka jeediyey kalfadhiga caadiga ah ee ururka jaamacadda carabta ayaa ku sheegay inuu mar kale xaqiijinayo mowqifka dowladaha Masar iyo Suudaan ee biyo-xireenka Itoobiya inuu yahay mid sugan wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa ku nuuxnuuxsaday in xalka uu ku jiro heshiis adag oo xaq ah kaasoo ilaalinaya xaqa dowladda Itoobiya ay u leedahay horumarkeeda isla markaasina aan waxyeeleynin xuquuqda biyaha ee dalalka Masar iyo Suudaan aqbalaadda qawaaniinta buuxinta iyo howlgelinta biyo-xireenka Itoobiya iyada oo la raacayo heshiiska dhinacyada ay khusayso oo ah heshiis qaanuuni ah oo sharci ah waxay horjoogsan karaan in gobolka uu ka dhaco qalalaase xun oo aan la mahdin doonin cawaaqib xumadiisa ayuu si adag u yiri Saamix Shukri oo ka hadlayay golaha ururka jaamacadda carabta wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa sidoo kale farta ku fiiqay caqabadaha ay marayaan dalalka carabta iyo dhibaatooyinka ka jira dalalkaasi in ay yihiin kuwa ku horgudban gaaritaanka yoolka horumarineed iyo himilada shucuubta dalalka carabta
saamix shukri ayaa ka digay fargelinta qaawan ee lagu hayo qaar ka mid ah dalalka carabta isaga oo ku baaqay in dowladaha carabta ay u midoobaan sidii wax looga qaban lahaa xiisadaha ka alowsan dunida carabta arrimahan ayaa imaanaya xili wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta shirkooda caadiga ay ku yeesheen magaaladan qaahira kaasoo looga hadlay xiisadaha ka taagan dalalka carabta. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira. markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka. waxaa la diyaara wariyaheenna milatariga israa'iil afiif kohaf ayaa sheegay in qorshaha lagula macaamilayo barnaamijka nukliyeerka iiraan ay dowladdiisu kor u qaaday iyadoo ay weli socdaan dadaalka loogu jiro in la meel mariyo heshiiskaasi tahreen ee nukliyeerka. sarkaalkan ayaa ka digay suurtagalnimada inay tallaabo ka qaadaan iiraan ay maalinta ka dambaysa sii kordhayso. barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqda dhegaystayaal waxa aynu ku eegaynaa halka ay marayaan dadaalkii heshiiska iiraan iyo dalalka reer galbeedka sida ruushka iyo shiinaha ayaguna ku jiraan ee mashruucaasi. madaxa milatariga israa'iil afiif kohafi ayaa warbaahinta u sheegay toddobaadkan inay dowladdiisu horumar weyn oo ku saabsan dhinaca sirdoonka hubka iyo awoodooda milatari ay wadaan si ay uga hortagaan iiraan. waxaa kale oo uu sheegay inay la shaqaynayaan dowlado ku yaala bariga dhexe si loo ogaado saaxiibada dhabta ah ee iiraan ku leedahay gobolka. mas-uulkan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ujeeddada ugu weyne ay tahay inay yareeyaan saameynta iiraan bariga dhexe ku leedahay iyo weliba awoodaha xisbullah iyo xamaas. bal marka hore aynu eegno halka uu marayo dadaalka heshiiska iiraan iyo dalalka qaybta ka ahaa. waxaana eegaya maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta oo ku taala dalka britain. maraykanka iyo iiraan waxay isla garteen in ay dib u soo ceshtaan heshiiskii nuclearka ay gaareen 2015 xilligii madaxweyne obama. laakiin maadaama madaxweyne trump uu heshiiskaasi ka baxay, iiraanna dhankeeda way ka baxday oo waxay dib u bilowday in ay tayeyso maadada uraniumka ee laga sameeyo qaraxyada ama bombka hubka halista ee nuclearka. haddaba madaxweynaha biden wuxuu sheegay inuu doonayo inuu dib ugu soo laabto heshiiskaasi haddii iiraan ay diyaar u tahay in ay u qabsoonto waxyaabihii heshiiskaasi markii hore la isku afgartay. waxaa kale oo uu heshiiskaasi doonayaa buu yiri madaxweyne biden inuu ka ballaarnaado nuclearka oo uu gaaro sawaariikhda kale ee loo yaqaano conventionalka ah ee ridada dheer, in ay joojiso iiraan iyo in la xakameeyo saameynta iiraan ay ku leedahay mandiqada bariga dhexe. taliyaha gaashaandhigga maraykanka lolodis austin oo ku sugnaa magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa isaguna waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqa militari ee iiraan ka wada bariga dhexe ay xiisadda iyo kalsooni darrada ka aloosan halkaasi ay kor u qaadayso. waxaa kale oo uu sheegay in diyaarka ay iiraan u tahay inay taageerto argagixisada inay siiso hub khatar ah uu kicinayo xiisada gobolka. lolodis austin ayaa waxaa kale oo intaasi raaciyay in maraykanka ay ka go-an tahay in dowladaha gobolka ay la shaqeeyaan korna loo qaado amniga gobolka lagana hortago wixii carqalad keeni kara. heshiiskii sanadkii 2015 ee nukliyeerka iiraan ayaa kow ka ah xiisada laga cabsi qaba ee gobolka iminka ka taagan. wadamada kale ee qaybta ka ah heshiiskaas ee kala ah shiinaha, jarmalka, faransiiska, britain iyo ruushka ayaa dadaal ugu jira inuu maraykanku si buuxda qayb uga noqdo heshiiskaasi. laakiin waxa aad moodaa in cagajiid jiro. maxaa hortaagan haddaba in heshiiskaasi la dhammaystiro? waa kan mar kale maxamed xasan dable. waxaa hortaagan in heshiiskani la dhammaystiro kala shakin aad iyo aad u fara badan. madaxweynaha ra'iisi waa nin aad u mayal adag, wuxuuna ku adkaystay marnaba in uusan ka tanaasuli doonin in uu mandiqadana saameyn ku yeesho bariga dhexe. dhinaca kale wadamada khaliijka gaar ahaana sacuudiga, imaaraadka, baxrayn iyo xulifadooda ayaa markii uu donald trump fadhiyey xafiiska washington dadaal weyn ugu jiray in aanu heshiiskaasi meel marin. laakiin tan iyo intii uu joe biden noqday madaxweynaha maraykanka dadaalkoodaasi waxba iska bedelay. halkii ayay iminka ka taagan yihiin heshiiskan? su-aashaasi jawaabteeda waxaa eegaya maxamed caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada helsinki ee dalka finland. dalalka khaliijka sacuudiga iyo baxrayn iyo imaaraadku aada ugumay farin, madaxdooda kumay farxin guusha Biden. waxay islahaayeen teramka labaad Donald Trump baa guuleysanaya. haddana waxay ku qasbanaadeen barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga dimuqraatiga uu la yimid Biden oo xafiiska mar hore u joogay 2009 ilaa 2017 madaxweyne ku-xigeen ah. wuxuu markiiba xoog saaray heshiiska nukliyeerka ee 2015 la saxiixday. wuxuu kaloo xoog saaray in khilaafka shiicada iyo sunniga la yareeyo,
wuxuu kaloo xoog saaray in mataqaana khilaafka dalalka khaliijka ee qatar iyo sacuudiga heshiis saxiixdan la heshiiyo. marka siyaasadda Biden daacad buu ka ahaa, wuxuuna islahaa dowladda Iran waxaa ku guuleysan doona teeramka labaad Xasan Ruuxaani. nasiib xumo Ibrahim Raisi baa yimid. marka madaxweyne Biden ilaa hadda wuxuu doonayaa inuu deganaansho siyaasadeed gobolka bariga dhexe ka dhaliyo, iyadoo mararka qaarkood ay isku dhacayaan Falastiin iyo Israa'iil, mararka qaarkoodna ay jirto colaadda shiicada iyo sunnigu inay imanayso. haddana heshiiska markasta wuxuu daacad ka yahay inuu dib loo soo nooleeyo heshiiskii 2015 ee nuclearka ahaa. iiraan ayaa muddo dheer iyadu waxay ku andacoonaysay in barnaamijkeeda nukliyeerka uu yahay mid nabdoon, iyadoo xustay inay kala shaqaysay hay-adda caalamiga ah ee nukliyeerka howlaheeda. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. taniyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo. aad buu u mahadsan yahay waryaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinaya barnaamijkeennii umuuraha islaamka. markana dhinacii heesaha haddii aannu jalleecno, waxaa dhegihiinna ku soo maqan codadkii macaanaa ee saalax qaasin iyo hibanuura. heestuna waa da wararka e f b waxa uu beesha caalamka ugu baaqay inay wada hadal la yeelato dhaqdhaqaaqa taalibaan ee la wareegay awoodda dalka afghanistan, isagoo ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in laga hortago burbur dhaqaale oo dalkaasi ku yimaada, taasoo horseedi karta buu yidhi in malaayiin dada ay geeriyoodaan. waa inaannu joogtaynaa wadahadalka aannu kula jirno taalibaan, kaasoo si toos ah aanugu adkaynayno mabaadi'deenna, ayuu yidhi. xogayaha guud waxa uu carabka ku adkeeyey inay waajib ku tahay inay isbarbar taagaan shacabka kadeedka ku jira ee ay malaayiin ka mid ahi waajahayaan geeri ay sabab u tahay gaajo. xaaladda dalkaasi lama sii saadaalin karo, maadaama ay sidaa tahayna waa inaannu taalibaan wadahadal la galnaa, ayuu raaciyey. xogayaha guud waxa uu carabka ku adkeeyey in wadahadal lala yeesho dhaqdhaqaaqa islaamiga ah uu yahay mid waajiba, wuxuuna intaasi ku daray haddii aannu doonayno in afghanistaan aysan noqon xarun argagixiso, haddii aannu doonayno in haweenka iyo gabdhuhuba aanay waayin xuquuqdii ay lahaayeen, waa inaannu hor fadhiisannaa taalibaan. xogayaha guud ayaa muujiyey sida uu diyaarka ugu yahay in uu maalin un booqdo afghanistaan haddii la helo jawi ku habboon. wasiirka arrimaha dibadda Israa'il Yair Lapid ayaa sheegay in bariga dhexe aanu nabad noqon doonin inta ay jirto argagixisada Iiraan, waa sida uu hadalka u dhigay, isagoo carabka ku adkeeyey in Tal Abiib aysan ka aamusi doonin dhaqdhaqaaqa ay wado Tehraan. Lapid ayaa shir jaraa'idu ay si wada jira Moscow ugu qabteen isaga iyo dhiggiisa Ruushka Sergey Lavrov waxa uu ka sheegay in aanay gacmaha ka laaban doonin dhaqdhaqaaqyada ay Iiraan ka wado saldhigyadeeda gobolka ku yaala. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa yidhi Iiraan waxa ay qaybinaysaa hub casri ah sina loogu weeraro, sidaasi aawadeedna waxaa nagu waajiba inaannu iska difaacno khatartaasi. mahadsanid jacfar kukaay oo noo akhrinayo warka caalamka. halkaad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington. aan ku bilowne waxaa cirka isku sii shareeraya muranka ka dhex aloosan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya, kaas oo salka ku haya buuqii ka dhashay dilkii la sheegay